assalaamu calaykum. Sixiroolihii ugu halista badnaa uguna khatarsanaa caalamkii hore ee qadiimka ahaa waana aabbaha sixirka madow ee Black Magic of Kabbalah ee waayaheennan iminka ay yuhuudda iyo in maasuuniyadda ka mid ahi u yaqaanaan. Waana sixir ku diiwaangashan afkii hore ee Baabil oo ah af iminka cid garanaysaaba aanay jirin, haddii ay jirtana ay yar yihiin oo yihiin dadkaa sixirka yaqaana uun ahna afka isrihii hore ee caalamkan aynu ku dhaqannahay ee fahmi la'nahay. badiba qadiimka markii uu ahaa sida uu u yaalay iyo qaabka uu ahaa ay ku diiwaangashan yihiin, keliyana waxa maanta afkaas fahmaya oo garanaya sixiroolayaashaas yaqaana sixirka madow ee yuhuudda iyo maasuuniyadda ah ee kooban ee weliba darajooyinka sarsare ah. ilbaxnimadaas Baabil waayaheedii waxa uu sixirku ugu baahay sida uu dabku ugu baaho cawska qallalan marka uu qabsado. Ilaahayna subxaanahu wa tacaala magaaladaas iyo qisadeeda sixirka la xidhiidha qur-aanka ayuuba ku xusay, waxaana uu inooga warramay in shaydaamadu ay dadka sixirka beri jireen oo u yeedhin jireen, sixirkuna uu noqday cilmiga ugu weyn ee la isweydaarsado magaaladaas iyo ilbaxnimadaas. xataa sixirkii ay adeegsan jireen masaaridii hore ee waayihii nebi muuse loo soo diray ay adeegsanayeen waa mid ay sixiroolayaasha macbadyadaas joogaa ka soo barteen oo ka soo waarideen sixirkii baabishii hore ee reer Baabil. bulshadaas Baabilla sixirkaas way kala dhaxleen oo facba fac ayuu u gudbiyey, waxaana uu noqday cilmiga uu aabe kasta ilmihiisa kula dadaalo. aakhirkiina waxaa ka soo dhex baxay sixiroole aanay adduunka hore iyo dib midna u soo marin cid la mida sixirka uu samaynaya, oo sixiroolinimadiisa iyo xumaantiisa iyo anshaxdarradiisa aan lagu gaadhin, sixirkana ka gaadhay heer aad u sarreeya oo aan dhaya lahayn. waxaa magaciisa la odhan jiray Hazaar, waxaana uu noqday hogaamiyaha sharka iyo sixirka madow ee xataa sixiroolayaashu ay ka warwareegaan inay waajahaan ama ay wax kala galaan. isaguna waxa uu ka gaadhay sixirka heer aanay waayahaas Baabil aqoonin oo cid taqaanaaba aanay jirin. meeshii ugu horreysay ee uu adduunka sixirku ka hana qaaday ee kaga baahayna waxay ahayd deegaankaas magacyada kala gedgedisan loo yaqaanay ee Akaad, Aashuur, Suumar, Baabil, Mesobotaamiya, waxaasoo magacyo deegaankaas lahaa iminkana la yidhaahdo Ciraaq. gaar ahaan magaaladaas la odhan jiray Baabil, halkaas ayuu adduunka sixirku ka hana qaaday, adduunkana uu kaga baahay. waxay lahaayeen baabiliyiintu farqoraal iyo nidaam ay wax u diiwaan geliyaan oo wax ku akhriyaan, maktabadna way lahaayeen ay u yaalaan buugaag ay ku qoran yihiin xogihii ay markaas caalamka kale ka hayeen ee juqraafi iyo taariikh iyo sixir iyo cilmiyo kaleba ahaa. waana luuqadda haddii maanta la heli lahaa raadkeedii, cid afkaas garanaysana la heli lahaa, si wanaagsan looga faa'iidi lahaa oo wax badan ay ku duugan yihiin. waxayna taariikhadyadu xusayaan in cid kasta oo ay reer Baabil islaayaanba ay kaga adkaanayeen sixirkaas madow iyo falid ay dadkaas candadowlayeen oo sixirkaas ku adhax jabinayeen. magaaladaas ayuu ka soo baxay sixiroolihii ugu weynaa ee soo maray taariikhdu. xilliga uu dhashay ee jirayna waxaa lagu qiyaasaa 1900 sano dhalashadii nebi ciise ka hor, waana muddo dheer kadib halaagii Namruud. taariikhdiisa shakhsiyadeed ee gaarka ahaydna wax xog ah oo sidaas lagama hayo, se waxay taariikhyahanada iyo ilo taariikheedyadu xoogga saareen dhanka sixirkiisii baanaa ee uu deegaankaas ku qabsaday ee uu aabbaha sharka iyo ibtirada ku noqday, magaciisuna uu ahaa Hazaar. yaraantiisii waxa uu aad wax uga bartay macallimiintiisii sixirka ee magaaladaas Uruuk oo iyaduna ilbaxnimadaas Baabil ka mid ahayd oo dhacda coonka webiga Furaat. halkaasna waxa uu ku bartay sixirro kala gedgedisan oo ummado kala qabaa'il ahi ay adeegsanayeen sida Suumariyiin, Aashuuriyiin, Baabiliyiin iyo kuwo kale, laakiin dhammaantoodba ilbaxnimadaas uun ku abtirsada. markaasuu ka soo dhex saaray sixir ba'an oo sida la qabo ee ay taariikhyahanadu dhigayaan loo badinayo inuu ka bartay shaydaanka, yacni ninkaasi sixirkii insigu yaqaanay iyo kii shaydaankaba wuu isku darsaday, waxaana uga soo baxay sixir ba'an oo waagiisii cid u babacdhigaysay aanay jirin, ilaa haddana uu ku diiwaangashan yahay sixiroolihii ugu xumaa taariikhda. waxa uu aad ugu sii xeel dheeraa sixirka Manzaazo oo ah sixirka madow qaybtiisa la xidhiidha arwaaxda maytaadka iyo dabagalka ilbaxnimadoodii hore si loo ogaado sirihii cidihii iyaga ka horreeyey. maantana sixirkaas Manzaazo waxaa la yidhaahdaa necromancy, welina waa la bartaa. sixirkaas oo gacanta yuhuuddaas iyo maasuuniyaddaas ayuu ku jiraa oo iyaga ayaa ku daraaseeyey faranka sixirkooda. sixirkaas uu yaqaanay ee Manzaazo ama necromancy waxa uu u shaqeeyaa laba qaab: in la akhriyo xirsiyo gaara oo qaab gaara loogu dhawaaqayo, kadibna la sameeyo dhaqdhaqaaqyo gaara, sidaasna ay ku yimaadaan qareennadii dadkaas dhintay ee ka warhayay noloshoodu, xogo doora oo badanna ay ka siiyaan cidahaas iyo waayahoodii. qaabka labaadna waa in maytaadkaas jidhkooda la jarjaro
oo xubin walba iyadoo sixiradaas loo adeegsanayo laga dhex akhriyo waxyaabihii ay soo martay iyada oo dabcan loo kaashanayo qareenkaas. arrimahaasi waxay ka dhigeen Hazard mid laga haybadaysto oo aanay saaxiriinta kale ku soo dhicin, oo xataa magaciisa aanay soo hadal qaadin. isaguna marba marka ka dambaysa shar iyo xumaan cusub oo hor leh ayuu soo biirinayay. halkaas ay leeyihiin sixroolayaashu arwaaxdii maytaadka ayaa la soo xaadirinayaa, ma jirto cid ruux soo xaadirin kartaa, ee sida ay dhigayso shareecada islaamku waxaa jira wax la yidhaahdo qareen. qareenkuna waa shaydaan qofka ku lamaan oo uu ibliisu raaciyo inuu lumiyo. qof kastaana waxa uu leeyahay hal qareen. cidda ay soo xaadirinayaan sixroolayaasha iyo fooxisooyinkuna waa qareenkaas oo ay ka waraysanayaan qofkaas uu dhalashadiisii ilaa dhimashadiisii ag joogay, xogaha uu ka helay ee ka hayay. markaasay dadka caamada ahna ku odhanayaan ruuxdiisii ayaanu soo xaadirinay. qareenkaas laftiisu iskama imanayo ilaa uu kaa soo xaadirinayaa sameeyo waxyaabo gaalnimo uu ilaahay kaga go'ayo ah oo aynaan inagu suuraysan karin hadda. sidaa awgeed ayay sixroolayaasha oo dhammi u yihiin dad xunxun. ninkaas Hazard ahi waxa uu cimrigiisii iyo noloshiisiiba u hubeeyey sixirkaas baabil inuu heer ka gaadho uuna noqdo ka dadka ugu sarreeya dhanka sixirka, heer uu markii dambe ku takhasusay sixirkii maaji ee baabil. waxaana la yaab leh ereyga maaji inuu yahay magacii loo yaqaanay sixirka baabil, iminkana afka ingiriisiga lagu yidhaahdo magic. badiba afafka adduunkana magacaas lagu yidhaahdo sida Faransiiska, Jarmalka, Talyaaniga, Armiiniyaanka, Albaaniyaanka, Ruushka, Burtuqiiska, Isbaanishka, Iswiidhishka, Laatiinka, Dhaanishka ay Denmark ku hadasho, Dhajka ay Holland ku hadasho, Litwaaniyaanka, Masidoniyaanka, Georgiyaanka, Griiga, Norwijiyaanka, Gujaratiga Hindiya iyo afka Poland. xataa waxaa jira gadood ka dhashay waayihii gumaysigii Tanzania oo Jarmalka lagaga soo horjeeday, oo sixroole deegaankaas joogay uu ka waraabiyey dagaalyahanadii Afrikaanka ahaa biyo la yidhaahdo maaji oo sixir ah oo uu ugu sheegay inay awood dheeraada yeelanayaan. kacdoonkaasna gebigiisaba waxaa la odhan jiray maaji, yacni in sixirku uu meel qura ka soo wada tafiirmay oo isku aabbe iyo hooyo yahay. waxay noo tilmaamayaa sida uu adduunkaba Afrika iyo Aasiya iyo Yurub luuqadaha lagaga hadlaa uga midaysan yihiin badankoodu magaciisana magic ama meji iyo kuwa kaaga dhowee ka tafiirmayun. ninkaas Hazardna sixirkaas waaxihiisii kala gedisnaa ayuu ku takhasusay, markaasuu qaatay magacan ah sixiroolaha ugu halista badnaa adduunka. Hazard waxa uu dhaaday in sixirka yaalla baabil uu yahay macruuf laisla wada yaqaano, waxaana uu go'aansaday inuu helo mid gaar ah oo dadkii waagaas joogay uu kaga wada awood badiyo. taasna waxaa quray ee uu ku gaadhayay waxay ahayd inuu shaydaanka u caabudo si ka badan sida ay sixiroolayaasha kale u caabudaan. cibaadadaasina waa ta u horseeday inuu shaydaanka ka barto isagu sixir ka weynkii la yaqaanay, heer ilaa maanta loo aqoonsan yahay sixiroolihii ugu weynaa ee soo maray taariikhda adduunka. ninkaasi waa ninkii ugu darnaa ee yaqaanay sixirka madow. sixirkaas madoobina waxa uu ka soo jeeday kii hore uga jiray baabil ee ay shaydaamadu dadka bareen, iyo labadii malag ee uu ilaahay subxaanahu watacaala ku soo dejiyey baabil ee uu u soo dhiibay sixirkaas jiray wixii lagu furayey ee ay dadku iskaga furdaaminayeen. oo inta ay shaydaamada xirsiyo kale ka dhex sameeyeen ay sixirkoodii ku sii dareen oo awood ka kororsadeen. labadaas oo isku jira ahna labada ilaa hadda adduunka loogu arrimiyo ayuu ninkaasi heerka ugu sarreeye ka gaadhay. ninkani meelaha uu geli kari waayo ee sixirka uu ka doonayo inuu kala baxo waxa uu u adeegsan jiray gabadha ay ku abtirsato astaanta jacaylka ee wadnuhu oo asalkeedii ahayd bari gabdheed ama bari dumar. gabadhaas oo aad u qurux badneyd oo magaceeda caadiga ahi uu ahaa inaana, magaceeda ay baabiliyiintu ula baxeen kadib markii ay iyada lafteeda caabudeen ee ilaahada jacaylka ka dhigteenna uu ahaa Cashtar. waayihii Griigana isla iyadii iyadoo la caabudayo loo bixiyey Aphrodite, waayihii Roomaankana isla iyadii loo bixiyey Venus, ahna ilaahada ay ugu magac dareen meeraha labaad ee dhanka cadceedda ugu dhow ee Venus. carabtuna ay u yaqaaneen gabadhaas Zuhra, ayna tahay ta uu ka soo jeeday sanamkii Laata ee caabudeen carabtu ee quraanka ku xusnaa. sidoo kalena ay gabadhaas sheekabarilaydeedu soo gaadhay Soomaalida oo ay u yaqaanaan Sukhra. haddii aad weydiisid waayaalka Soomaaliyeedna ay ku odhanayaan Sukhri waxay ahayd gabadh qurux badnayd oo laba malag oo uu ilaahay u soo diray dhulka ayaa ka helay quruxdeeda oo la hasaaway. markaasay u sheegeen aayadda ay ku duulayaan. markii ay duushayna waa la nasakhay oo waa xidigta waa beri ee ololka badan ee qurxoon. balse qisadaasi waa Israa'iiliyaad ama qisaska Yuhuudda ee samayska ah. gabadhaasina waxay ahayd ta uu Hazard u adeegsado howlgalladiisa sixirka iyo fitnaynta ah. ilaa haddana waa taas astaanta ay dadka adduunkuba ku wada dhegan yihiin ee jacaylku gabadha ay ku abtirsato. talow ma odhan karnaa
astaantaasi waxay xambaarsan tahay sixirkaas madow ee Hazard. dadkan jacaylka baraaciska uun hadal hayana sixirkaas ayaa taabtay sixirkii Hazard iyo gabadhii uu adeegsan jiray fitnaynta iyo astaantii laga sameeyey gabadhaas ee jacaylka ahayd. weli waa kuwaas adduunka saamaynta ku leh ee gaal iyo islaamba dhalintii iyo bahdii fanku ay jacayl iyo wadnahaas samayska ah isla dhex marayaan. talo ma odhan karnaa weli ninkaas Hazard sixirkiisii adduunka saamaynayuu ku leeyahay. dhanka kale Hazard waxa uu u laqimay reer Baabil inay caabudaan qorraxda iyo meerayaasha iyo dayaxa iyo xidigaha, kuwaas ayuuna dadkii Ilaahay uga dhigay. welina adduunkan maanta way ka sii jirtaa weynaynta qorraxda iyo meerayaashu, iyada oo qaab diimeed laga aaminsan yahay. astaamahii baabiliyiinta iyo faraaciintii hore ee labaduba ay sixirka ku sheeganaayeen, maanta weli waxaad moodaa inay adduunka firfircooni ku leeyihiin, gaar ahaan caalamka galbeedka ee Yurub iyo Ameerika. shirkigii iyo sixirkii uu ka tegay Hazardna weli adduunka wuu ka shaqeeyaa, isaga oo ay baahinayaan maasuuliyiinta iyo yuhuudda intooda sixirka madow ka sii taqaanaa. ninkaasna sixiroolayaasha dhexdooda aragtiyihiisii kama ay dhiman. ilaahay ayaynu ka magan gallay ciddii shirqool iyo xumaynoo maleegaysaba. ilaahay ayaynuna isku hadlaynay sirmaqabane allah u sahana. si ha ilaawin murtida Soomaaliyeed ee tidhaahda ilaahay waxa uu kugu yidhaan ku bariye meel beersan seexo, ama xadiiskii nabiga sallallahu calayhi wasallam ee ahaa ilaahayna tala saaro sababihiina la kaalay. wasalaamu calaykum.